Hi, soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada seasonkii inoo socday ee Love Between Lines qaybtiisa shanaad. Muuqaalka Lexar waa canshuur keliya kugu leeyahay. Sidoo kale ku soo biir janaalka haddii aadan weli ku soo biirin waxa saaran wadadii aad ku gaari lahayn 100,000 oo saaxiibo. Saaxiibadayo ma aqaan seasonkan waxa ku aragteen, laakiin ugu dambeyntii codsigiina waa aqbalay oo hadda iyo wix ka dambeeyay baartibaarta ayaa idinkugu soo fasaxi doona. Markii hore waxaa rabay inaan hal mar isku soo wada dhajiyo weliba asigoo full season ah soo dhigo, laakiin aniga waxaa raba waxa ka weynaaday waxa idinka rabtiin waxaana rajaynaya ilaahay sidoo raban in sidaas ay noqoto. haddana aan gudagalna muuqaalkeena. Hujo aabaheed markii uu guriga ka tagay dhab ahaantii ayada murugo fara badan ayay dareemaysaa. Intaas wax ka dambeeyna waxay dib ugu laabanaysaa qolkeeda. In badan ee sariirteeda ay jiifteen ugu dambeyntii Shia ayaa soo wacayo. Xilligaasina si quraac ayuu u soo gaday wuxuuna rabay inuu qolka uu ka soo saaro maadaama ay murugo ee dareemayso. Sidoo kale wuxuu ku dhahayaa kaalay waxyada ayaa waraabinayna. Intaas wax ka dambeeyna Hujo ayada qolkeeda waa ay ka soo baxaysaa. Kadib markay quraacdaan waxay dib ugu laabanayaan sawir ee hore ay u nashqadeynayeen. Taasina waxay sabaysaa Hujo ayada gabi ahaanba in iska ilowdo wixii dhacay. Dhinaca kale Sheerin ayaa arkaynaa silan filaana dukaankeeda waxaa ku imaanayo gacaliyaheeda oo markaas leh safar shaqo ka imaaday. wuxuuna u keenay macmacaan oo ayada oo ugu talagalay kaasoo ay aad u jeclay. magaalada uu ka tagayna markii hore waxyaabo ugu badan uu kaga xiisay ayada ayaa ugu horeysay. dhinaca kale Shia ayaa arkaynaa asagana weli wuxuu raadinayaa aabihiisa saaxiibada ay iskula shaqayn jireen. aabihiisana kahor inta uusan geeriyoonin waxaa jiray mashruuc dhismo oo asagoo uu gacanta uu ku hayay laakiin ugu dambeyntii uu dhameeyey. hase haatee ugu dambeyntii dhismahaasi waxaa dhacday inuu dhulka ku darsamo calaashaan uu soo duumo. midaasina dhab ahaantii Shia aabihiisa dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaartay isaga. dhismahaasi inuu burburan waxaa ka dambeysay birarka ay u adeegsanayeen dhismaha. maxaa yeelay birarkaas ayaga ma aysan lahayn tayo heer saro maadaama qandaraaskaas uu aabihiisa mas-uuliyadiisa u qaadayna dhab ahaantii wax walba isaga ayay kusoo biyo shogteen. xanuunka midaasi ka soo gaarteen ugu dambeyntii waa uu u geeriyooday isaga. Shiana inuu helo saaxiibadii xilligaasi aabihiisa la shaqaynaya isaga dhab ahaantii wax weyn ayay aaga dhignayd. maalinka xigan markii uu imaado kambaniga wuxuu ogaanayaa nashqadii ay ku tartami lahaayeen ugu dambeyntii in faraha laga qaaday calaashaan la dhameeyey. farxadaas awgeedna wuxuu imaanaya meel uu inta badan uu waqti uu ku qaato. laakiin isla markiiba Hujo ayaa la soo hadlaysa waxayna ku dhahaysaa adiga looma baahna inaad qabri aa cabto. midaasina Shia dhab ahaantii aad ayuu ugu farxaya. maxaa yeelay markii hore isaga ma aysan jirin cid xaaladiisa ka warhaasay. laakiin hadda markii uu arko qof soo wacayo weliba ku dhiirigelinaya isaga wuxuu jecel yahay inuu diiradda u saaro iskana daayo balwadda. midaasi aad ayay u farxad gelisay. habeenkaasina markii uu gurigu dib ugu soo laabto wuxuu ogaanayaa Hujo qolka ay seexatay inuu zayd u gaaban yahay. mar walbana uu madaxeeda uu saqafka uu ku dhaco. ayadan qorshe fiican ay samaysay si ay midaas aga hortagto. saqafka ee mar walba ee madaxa ay ku dhufsata ayay suuf ku xiratay taasoo ka difaacayso dhibaatadii meesha ka soo gaari lahayd. maalinka xiga Mr. B wuxuu imaanayaa kafeteriga Sheerin. halkaasina wuxuu u imaaday isaga kafee inuu ka cabo laakiin wuxuu ogaa Sheerin iyo Hujo inay saaxiibo aad iskugu dhow ay yihiin. ugu dambeyntii wuxuu ogaanayaa Hujo ayada kaligeeda inay tahay calaashaan aysan xiriir lahayn. intaas wixii ka dambeeyna hadiyad ayuu u soo diyaarinaya oo wuxuu imaanayaa halkii ay deganay. laakiin meesha wuxuu kula kulmayaa Shia oo guriga ka sii baxayo. Mr. B isaga wuxuu u maleynayaa labadooda inuu xiriir uu ka dhaxeeyo. taasina ay keentay inay hal guri ay wada deganaadaan. maalinkaasina Hujo waxay ahayd maalinta dhalashadeeda. ulajeedkeeda ugu weyn wuxuu ahaa maalinkaas inay waqti ay la qaadato Shia. Shiana isaga wuxuu tagayaa hotelka ay ku balansanaayeen halkaasoo muddo dheer uu ku sugayay. laakiin ugu dambeyntii Hujo ayaa imaanaysa hotelka. teeda ayay la soo baxaysaa. intaas wixii ka dambeeyna shumac ayay shidayaan. hal mar ayaana dhacaysa inay wada damiyaan labadoodaba. Hujona ayada habeenkaas waxay ku ducaysanaysaa sanadkan sanadkiisa kale inay gaarto. sidoo kalena idinku waxay idinka codsatay Mohas ina 100,000 ay gaarsiisaan. markay ka soo dhamaadaan hotelkan waa ay ka soo baxayaan. habeenkaasi Shia gaariga furiisa ayuu gacanta ka saaraya Hujo. kaxeesa ayuu ku dhahayaa waxaana tagtaa guriga waalidiintaada. adigana aabahada waa inaad soo raaligelisaa weli wax walba a fahansiisa. midaas ayaana dhacaysa oo ugu dambeyntii Hujo waxay imaanaysaa guriga waalidiinteeda. waxayna aabaheeda ay u jaraxaysaa wax walba siday u jiraan. waxayna ku dhahaysaa aniga dhab ahaantii ninkaasi fursad ayuu i siiyey. weligeena waxaa jecla ayay ku dhahaysaa inaan noqdo nashqadeeyo laga wada dambeeyo. haddana waxay u muuqataa inay midaas ii suuragalaysa maxaa yeelay waxaa ka qaybgalaya tartan mashruuc aad u weyn. tartamayaashaas ayaa ka mid ah ayay ku dhahaysaa waxaana laga yaabaa aniga iyo shirkadeedaba inaan guulaysano. aabaheedan markii uu midaas uu maqlo isaga dhab ahaantii aad ayuu ugu farxaya. gabadhiis ayuuna ku dhiirigelinaya inay hamigeeda ay ka dhabayso. sidoo kale Mr. B ayaa arkaynaa isagana waxaa u soo sawirantay tartanka farshaxanka in laga badin doono maadaama Hujo uusan gacan uu ku haynin weli waqtigan uu aad ugu yaryahay. intaas wixii ka dambeeyna wuxuu go'aansanayaa inuu wax walba uu isku qaso. maalinka xiga ayuuna shir jaraa'id qabanaya. dhammaan dadweynaha iyo howlwadeenada wuxuu la wadaagayaa sawiraday uu diyaarsaday dhab ahaantii kuwaas inaysan ahayn kuwo uu ku tartami karo. marka hadda ayaa raba ayuu ku dhahaya inaad diyaarsado sawiro kuwaasi ka duwan weliba ah ka diyaariyo magaalooyinka sidoo kale hoteelada iyo shacabka. shirkaasi jaraa'idkana waxaa si live u daawanayeen Shia iyo tiimkiisa. Shiana markii uu midaas uu maqlo isaga aad ayuu u niyajabaya. maxaa yeelay hadeertan ma uusan ogeyn weliba ma uusan saadaali karin wax uu la imaanayo Mr. B. ayagana hadeertan sawirkooda waa uu u diyaarsanay. sidoo kalena Shia waxaa loo
sheegaya in la bedeli karin sawirkii hore loo diyaariyey maxaa yeelay waqti fara badan ayay qaadatay ayaa lagu dhahaya. Tanina boqolkiiba boqol Shiya isagu waxay u soo sawiraysaa in laga guuleysan doono. Habeenkaas oo dhan Shiya isagoo uu fikiraya weliba aad ayuu aaga daahaya gurigiisa. In badan Huju ayaa soo wicisay uu taleefanka uu ku dhageysanay laakiin ugu dambeyntii waa uu ka qabanaya. Waxayna ku dhahaysaa habeeneeda duqda ee deriskeena buufina ka soo fakadeen ayaa qolkaada galeen. Marka inaa imaado ayaa loo baahan yahay si buufinadaas loogu soo bixiyo. Shiyana fikirka uu ka fikiraya arrinta asiga ku soo wajahan waxaba ka soo dhaxgalayso Huju taasoo ugu dambeyntii sababtay Shiya asiga si dhaqsi leh inuu guriga uu ku imaado. Intaas wixii ka dambeeyay guriga saqafkiisa kore ayuu imaanaya. Halkaasina waxaa yaaleen buufino fara badan waxaana ugu diyaarisay Huju. Buufinadaas kala kalarkana qofka markii uu arka asiga waxaa loo baahan yahay inuu farxo laakiin adiga ma faraxda ani weli ma aanan farxin. Sidoo kalena Huju ayada Shiya waxay u diyaarisay cunto aad u macaan labadoodana waqti qurux badan ayay ku qaadanayaan guriga saqafkiisa kore. Shiya ayaan Huju wax weydiinaya ayada sababtay u jecesha inay xaafadan ay ku noolaato. Hujuna ayada waxay ku dhahaysaa aniga xaafadan waa ku soo koray sidaas ayaa u jeclahay waxaana isii jeclaysiisay xaafada. Deriska wanaagsan ee degan kuwaasoo mar walbo garab aaga baahday ay caawiyaan ayagana caruurnimadeeda ayay ii qurxiyeen ayay ku dhahaysaa. Shiya isaga weli waxaa murug ku haysay sawirka nashqada. Subaxda xigtayna waxaa dhacays inuu xili hore uu soo tooso. Markii uu balkoonka uu soo istaagan wuxuu arkayaa Huju iyo caruur tiro badan oo meesha ku ciyaarayaan. Ilmahana zaid ayay u faraxsanayeen ayaga maxaa yeelay dhammaantooda buufina ayaa loo wada qaybiyey. Midaasina Shiya isaga dhiirigelin ayuu ka helaya asagoo isla markiiba tiimkiisa nashqadeeyaasha la wadaagayo inay sameeyaan nashqad degdeg weliba casri ah. Nashqadaasoo laga sameynayo deriska iyo siday isku jecel yihiin sidoo kale caruurta aad u faraxsan maadaama nashqadan fikirkeedan uusan qaadanin waqti aad u fara badan. Shiya tiimkiisa waxaa dhacaysa isla markiiba inay kala tuuraan. Ugu dambeyntiina waxaa la gaaraya xili nashqadeeyaasha la soo bandhigi lahaa iyo weliba shirkadu guuleysatay. Hujuna markay sawirkeeda nashqada ay soo bandhigto garsoorayaasha aad ay u qiimaanayaan waa ayna ka helayaan. Taasina waxay sabaysaa ugu dambeyntii inay guuleystaan shirkada Shiya iyo tiimkiisa. Mr Bean kaliya hal cod ayay kaga badiyeen asagana midaas aad ayuu aaga xanaaqaya. Intaas wixii ka dambeeyna hoolka uu ka soo baxaya oo wuxuu imaanaya meesha khamriga lagu cabo. Sidoo kale halkaas Shiya ayaa imaanaya. Mr B oo xanaaqsan ayaan ereyo qalafsan ku dhahayo weliba aanan wanaagsaneyn. Xiligaasina Mr B asaga caraf fara badan ayaa ka muuqatay laakiin waa uu qarinayay. Shiyana waxaa lagu dhahayaa adiga waxa ku wanaagsan si dhaqsi ah inaadan u dabaaldegin maxaa yeelay guuldarooyinkaaga hadda ayay bilowdeen ayaa lagu dhahayaa. Wixii ahaato ugu dambeyntii Shiya asaga waxaa lala wadaagayaa saaxiibadii aabihiisa kuwaas oo asaga uu raadinayay. Sidoo kale Shiya ninka u keenay informationkaas wuxuu weydiinayaa mas-uulkii maamulaha ka ahaa meesha laga soo iibiyey agabka lagu dhisay dhismaha. Xiligaasina kadib markii uu dhismaha uu fashilmay weliba uu soo dumay mas-uulkaas asaga ma uusan waynin shaqadiisa laakiin taasi cagsigeeda asaga waa la dalacsiiyey. maalinka xigan Huju ayada waxay imaanaysaa kafeteriga saaxiibteeda Shirin maadaama ay tahay isbuuca dhammaadkiisa ayada waxay u malaysay kafeteriga inuu jaam u ahay waxayna rabtay inay caawiso saaxiibteeda Shirin laakiin silan filan Shirin ayaa Huju waxay la wadaagaysaa halkan inuu Mr B u imaaday. Sidoo kale maanta wuxuu ciyaari doonaa ayay ku dhahaysaa ciyaartii midnight. Hujuna ayada waxay xaqiiqsanaysaa maanta inay huwaaltahay inuu Shiya uu ciyaari doono. Intaas wixii ka dambeeyna kafeteriga saaxiibteeda ayay ka soo tagaysaa oo waxay imaanaysaa halkii ciyaartii ay ka dhaceysay laakiin nasiib xumo ayada waxaa lala wadaagaya tikidhada oo dhan inay ka dhammaadeen. haddana tikidku ma heli karna ayaa lagu dhahaya waa ina iska laabataa laakiin Huju gabadha joogtay receptionka ayay soo wacaysaa ayadoo macaamiil iska dhigayso. markii ay gabadha ay mashquulshan ayada gudaha ay orod ay ku soo galaysaa laakiin Kenda ayaa qaybta kaamirada ka arkayo. Hujuna in badan ay raadinaysay Shiya ugu dambeyntii waa ay helaysaa laakiin silan filan meesha waxaa ka soo muuqanaya Mr B isla markaasina shaqaalaha ayaa halkaas imaanayaan ayagana waxay rabeen Huju inay ka saaraan. maalinkaasi Mr B dhammaan dadkii meesha joogeen wuxuu u caddeynaya isaga inuu yahay Shiya walaalka ka weynaay. Shiya dadkii yaqaaneen weliba meesha joogeen ayaga aad ay oo la yaabayaan maxaa yeelay Shiya midaan weligiis afkiisa lagama maqlin. sidoo kale halkaas waxaa lagu ogaanayaa Shiya aabihiisa inuu ka shaqayn jiray shirkadooyinka dhismaha. waxay ahaataba ugu dambeyntii markay ciyaarta ay dhammaato Shiya iyo Huju meesha waa ay ka soo tagayaan wax walbana siday u jiraan. Huju Shiya ayaa la wadaagayo wuxuu ku dhahayaa aniga iyo Mr B walaalo dhab ah ma nihi laakiin kadib markii uu aabahayga u geeriyooday ayuu ku dhahayaa Mr B aabihiisa hooyaday ayuu guursaday. maalinka xigtayna Kendi wuxuu la kulmayaa Huju asagoo raba inuu wuxuu ku ogaado xalay toolo wixii dhacayay. aniga iyo Shiyana saaxiibo aad iskugu dhow ayaa ahayn ayuu ku dhahayaa. hasaatee keliya waxaa ogaa aniga Shiya inuu qaraabo uu leeyahay. sidoo kale Shiya asagoo qof adag ayuu ahaa ayuu ku dhahaya oo asagoo arday ayuu haddana shaqaynayay taasi oo ardaydii fasalka iskula dhiganaynay uu caddeysay Shiya asaga inuu ka soo jeedo qoys faqiiriin ah. marka aniga weligay uma aanan malaynaynin ayuu ku dhahaya Shiya aabihiis inuu taajir uu noqon doono. sidoo kale Huju ayada mar waxa ay maqashay Mr B oo Shiya ku dhahaya asaga waa tuug shirkadan uu leeyahayna lacag uu aabahayga uu ka dhacayo ku dhistay ayuu ku dhahaya laakiin ayada Huju midaas ma aysan aaminin. maalinkaasina Huju iyo Shiya intii ay guriga ay nadiifinayeen Huju gacanta ayaa dhaawac ka soo gaarayo isla markiina dhaawaceeda Shiya ayaa ka hortagaya oo gacanta ayuu faashad
ugu xiraya wuxuuna ku dhahayaa had iyo wixii ka dambeeya adig marka guriga hagaajinaysid waa inaad golofis isticmaashaa si ay gacantaada ay kugu badbaado weliba aysan wax dhaabac ay kuu soo gaareen wuxuuna ku dhahayaa aniga taxadarkan waxaa ogaaday markii ayaraa weliba ay shaqayn jiray wax walbana gacanteeda ayaa ku nadiifin jiray ayuu ku dhahayaa kahor inta uusan gacanta uu dhaabac uu iga gaarin weliba aanan wax walba ogaanin huujuna arrinkaasoo ay faxday waxay la wadaagaysaa saaxiibteeda shiiriin arrinkaasoo ahaa Mr. B iyo Shaya inay walaalo ay yihiin sidoo kale waxay la wadaagaysaa isaga xilligiisii waxbarashada xitaa inuu ahaa mid shaqeeya dhaqaalihiisa oo wanaagsanaa awgeedan waxaa dhacda ay ku dhahaysaa inuu kambani uu samaysto habeenkaasina Shaya kalfadhi ayuu lahaa sidoo kalena waxaa la socotay huuju marna isagoo mashquulsan mid ka mid ah dadkii meesha joogeen huuju ayuu cidhiiri gelinaya isagoona ku dhahaya dhab ahaantii adiga iyo Shaya si gaar ah ayaa isku darayeesheen adigana keliya shirkadiis waxaa ka shaqaysa ayuu ku dhahayaa 2 bilood intaas wixii ka dambeeyna wuxuu ku dhahayaa adiga iyo asaga xiriir dhow miyaa leedihiin laakiin isla markiiba meeshiya ayaa imaanayo asagana wuxuu dareemayaa xaaladda huuju inaysan wanaagsaneen intaas wixii ka dambeeyna cudurdaar ee meesha ay kaga soo tagaan ayuu raadinaya ugu dambeyntiina waa ay ka soo tagayaan inta ay guriga u soo socdeen huuju ayada waa ay iska seexanaysaa ugu dambeyntii gurigooda ay imaanayaan cirkan baraf ayaa ka soo daadanayo intaas wixii ka dambeeyna ayada iyo Shaya jabi kale ay galayaan oo waxaaba dhacaysa meeshii ay joogeen in iskala tagaan Shayana uu soo xirtay dharkiisii sargaalka habeenkaasi silan filaan labadooda bishimahooda ayaa isgaarayo calaashaan waa ay ishuminayaan ayaa ka wadaa maalinka xigtayna huuju ayada markii ay soo toosto waxay ogaanaysaa xalay tool wax wanaagsan inuusan dhicin laakiin Shaya markii uu arkay xaaladeeda inaysan wanaagsaneen asaga wixii dhacay sharaxaad kama bixinayo intaas wixii ka dambeeyna saaxiibteeda shiiriin ayay u keenaysaa waxyaabo ay ayada ee ugu tala gashay isla habeenkaasi mar kale huuju ayada waxay dib ee ugu soo laabanaysaa ciyaarta midnight ayadoo wadada soo socotana waxay silan filan ee oo la kulmaysaa Shaya asagoo fara saaran weliba xalimooyin fara badan ee indhaha ay ku hayaan ciyaartaasina huuju ayada waxay ku mitilaysay inay tahay gacaliyaha Shaya intaas wixii ka dambeeyna waxay bilaabayaan inay ciyaaraan calaashaan ay dansi gareeyaan ayaa ka wadaa asaatee xoogaa kadib meesha waxaa imaanayaan niman raadsanayaan huuju iyo Shaya ayagana meel meesha ka baxsan ayay kaga soo dhuumanayaan inta ay meesha ay ku jireen Shaya iyo huuju waxaa dhacaysa inay isku soo dhawaadaan walow ee markaan ay kala badbaadeen dhacdadaasina huuju ayada waxay ku soo xusuusanaysaa xalay toolo wixii dhacay waxaa soo ahaayeen ayadoo shuminayso Shaya maalinka xigtana waxaa dhacaysa Shaya asiga hooyadiis inuu gurigeeda uu ku booqdo hadiyad ayuu u geenayaa wuxuuna ku dhahayaa waa xilligii qabriga aabba booqan lahayn laakiin hooyadiis waxay u sheegaysaa inaysan booqan karin weliba keligiisa uu yahay markaani markii uu kasoo tagana meel supermarket ayuu waxuu ku arkayaa dharkii xalay toole ee wadatay huuju kuwaasoo aad u qurux badnaayeen waxay ahaato maalinkaasi huuju iyo familkeedu waa ay isa soo raacayaan waxayna imaanayaan meesha xabaalaha halkaasoo uu ku dugnaa huuju aabbaheedan in ay saaxiibo ay yihiin hal meel ayayna ka wada shaqayn jireen labadooda huuju aabbaheedan dhaabacan lugta ka soo gaaray wuxuu ka soo gaaray markii ay dhisme ee labadooda ay dhisayeen uu soo dumay asagana uu ku dhintay sidoo kale Shaya asagana wuxuu soo booqanayaa qabriga aabihiisa laakiin sidoo kale halkaas waxaa imaanayo Mr. B wuxuuna ku dhahayaa run ahaantii waxaa ii muuqata adiga inaa ilowday magacii uu aabbahaada uu ku bixiyey muuqaalkeena qaybtii shanaanta halkan ayuu inoogu eg yahay insha Allah waxaa rajaynayaa seasonkan sida ugu dhaqsiyaha badan inaan kusoo gabagabeeyo subscribe like share intaan ka kulmaynana muuqaalkan muuqaalka xiga nabada